dhowrkii sannadoodba mar la bedeli lahaa waxay noqon lahayd in macluumaadkii maskaxdaada ku jiray oo dhani ay dhilidgaroobaan oo haddana 5tii sannadoodba malcaamad cusub lagugu daro macluumaad cusub lagugu shubo ilaaha xaliimkii wuxuu go'aansaday si aan dhibaatada bini'aadmiga ula kulmin in maskaxda xubnaheeda iyo unugyadeeda aan la bedelin waxaa dhowaan la ogaaday unugyada wadnahana lama bedelo dhaqaatiirta duruusta dhinaca caafimaadka ka soo jeedisay masjidka waxaa ka mid ah Dr. Xuseen Maxamed Maxamed oo wadnaha ku xeel dheer waxaanu si buuxda ugu sharaxay jamaacada masjidka ku xiran waxa uu marka horeba wadnuhu yahay. wadnuhu waa xubin jirkeena ka mid ah oo aad iyo aad muhiim u ah sida uu sheegay waxa weeyaan tantoomadaas ayaa lagu qiyaas ahaan miisaan ahaanna waxa weeyaan ilaa 300 oo gram ayaa uu noqdaa oo macnaheedu yahay rubuc kiilo iyo wax yar ama rubuc kiilo iyo wax yar ayuu maartay muxuu ahaayay culays ahaan uu noqdaa sida uu yar yahay iyo waxtarka bini aadamka uu leeyahay oo laba aad iyo aad u kala fog runtii wuxuu ka kooban yahay 4 qol wuxuu u kala xiran yahay bidix iyo midig gidaar baa u dhaxeeya u kala xiray suma gudbaan sida u dheeraran bidixdii iyo midigtiina mid walba 2 qol oo isdul saaran ayaa ay leedahay oo isu furan oo albaab dhinac qura u furma oo xiriirsiyo. Dr. Xuseen Maxamed Maxamed waxa uu ka jawaabayaa su'aal uu mid ka mid ah jamaacada weydiiyey oo la xiriira qalabka wadnaha lagu xiro marka ay hawshiisu daciifto. waxaynu sheegnay wadnaha qaybta sare ee midig waslad yar oo aad yar baa Ilaahay ku abuuray uu dhaawacmaa uu shaqayn waayaa amarkii iyo fariintii uu diri jiray ee wadnaha uu fari jiray inuu iskaraaco ayaa luma marka wadnu isma taago waayo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kaalmo kale oo wadnuhu isku ilaaliyo ay Ilaahay siiyay oo ah unugyada wadnaha ayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu ku abuuray in haddii ay war waayaan ay 35 jeer daqiiqadii iskood isu garaaci karaan sidaa markaa muxuu ahaay waxa markaa la soo saaray bahal yiraahdo pacemaker oo ah qalab yar oo baytarigiisu cimri dheer yahay ilaa 15 sanadood shaqayn karo oo dabkii generate gareyn kara daqiiqadii generate gareyn kara intii loo baahnaa inuu wadnuhu garaaco samayn kara oo markaa halkan harag hoosta loogu xidho. sidoo kale Dr. Gaboose ayaa masjidka Cumar Cismaan ka jeediyey muxaadaro uu kaga faallooday neerfaha amaba dareemayaasha noolaha sida ay u shaqeeyaan iyo weliba faa'iidada ay noogu fadhiyaan. Dr. Gaboose waxa uu ku dheeraaday ka sheekaynta awoodda alle ee ka dambaysa ilaalinta unugyada maskaxda oo uu sheegay in lagu dhowray goobo adkaysi badan oo dhibaatada dibadda kaga iman kartaa ka difaacaya. qaybta loo yaqaano dhexe centralku waa qaybta ay ku jiraan unugyada shaqada qabanaya sida awgeed ilaahay laf buu qaadayoo uu ku xiray madaxii maskaxda waayo waxaa ku jira unugyadii qaaliga xangullihii buu arkay soo qaadoo laf buu ku xiray xangullihiina intaa wuxuu ka ilaalinayaa si aanay kaaga dhaawacmin maskaxda unugyadeeda wax qabanaya iyo xididadeeda iyo neerfayaasha. sidoo kale digtoorku waxa uu ka faallooday dareemayaasha ku jira jirka aadanaha iyo hawsha muhiimka ah ee ay hayaan. jismigeenna ma jiro xubin magac leh oo aan neerfa imaan ama neerfa ka tegin dhammaan waxaasoo dareenana ee socda iyo dareen soo degayana waxaa loo wadaa qayb